ay taariikhdu tahay 18 Janaayo 2020 waxaa xarunta madaxtooyada dawladda Puntland ee magaalada Boosaaso ku qabsoomay kulan dhex maray madaxda dawladaha xubnaha ka dawladda federaalka Soomaaliya ee Puntland iyo Jubbaland shirka waxaa ka qayb galay madaxweynaha dawladda Puntland mudane Siciid Cabdullaahi Deni xubno ka tirsan golaha xukuumadda ee dawladda Puntland iyo waliba madaxweynaha Jubbaland mudane Axmed Maxamed Islaam iyo xubno kamid ah wafdiga uu hogaaminayay gaar ahaan xukuumadda kulankaasi waxa furay oo markii hore faahfaahin ka bixiyay labada dhinac madaxweynayaasha Puntland iyo Jubbaland oo aad uga hadlay xaaladda guud ee siyaasadda Soomaaliya waxaana uu shirkani ku saabsan yahay iskaashiga Puntland iyo Jubbaland ee dhinacyada amniga ganacsiga iyo horumarka guud waxyaabaha kale ee kulanka looga hadlay waxa kamid ah shirkaasi looga hadlay arrimaha siyaasadda Soomaaliya si gaar ah doorashooyinka dib u eegista dastuurka arrimaha shidaalka iyo waliba qaybsiga deeqaha lagu helo magaca Soomaaliya gudiya ayay soo saareen xubnaha golaha xukuumadaha Puntland iyo Jubbaland oo arrimahaasi ay ku falanqeynayaan waxana uu qorshuhu yahay in dhawaan la soo saaro warmurtiyeed lagu muujiyay waxyaabaha ay labada dhinac isla gaareen madaxweynayaasha Puntland iyo Jubbaland ayaa dhinaca kale kormeer ku sameeyay dekedda weyn ee magaalada Boosaaso iyagoo halkaasina ku booqday mas'uuliyiinta dekedda waxaana sidoo kale ay mid u tageen xarumaha dekedda ay ka kooban tahay halkaas oo ay ku yaalaan xafiisyo ay leeyihiin wasaaradaha dekedda maaliyadda iyo wasaaradda kalluumaysiga iyo kheyraadka badda Puntland sidoo kale mas'uuliyiintan ayaa waxa ay kormeereen xarunta saldhigga bartamaha magaalada Boosaaso halkaas oo ay warbixin kaga dhageysteen saraakiisha saldhigga bartamaha Boosaaso waa kan mar kale afayeenka madaxtooyada ahna agaasimaha warfaafinta Jaamac Yuusuf Dabaraani oo arrimahaasi ka hadlaya intaasi kadib madaxweynaha dawladda Puntland mudane Siciid Cabdullaahi Deni oo weheliyo madaxweynaha Jubbaland mudane Axmed Maxamed Islaam waxa ay si wada jira u kormeereen dekedda magaalada Boosaaso halkaas oo ay booqdeen shaqooyinka iyo sida ay u socdaan oo qaybaha kala duwan ee dekedda ay booqdeen xafiisyada wasaaradaha maaliyadda kalluumaysiga iyo wasaaradda dekedaha ay sidoo kale ay booqdeen waxaana warbixin ka dhageysteen meel kasta ay booqdaan dhammaan mas'uuliyiinta halkaas ay ugu tagayeen kadibna waxa labada madaxweyne kormeer ku tageen saldhigga bartamaha ee magaalada Boosaaso halkaas oo qaybaha kala duwan iyo shaqadu sida u socdaan ay booqdeen waxaana ay warbixin ka dhageysteen saraakiisha saldhigga bartamaha ee magaalada Boosaaso intaas kadibna waxa ay ku soo laabteen xarunta madaxtooyada ee magaalada Boosaaso waxa sii socon doona kulamada gooni-goonida iyo kuwa gaargaarka ah ee ka socda magaalada Boosaaso oo ay yeelanayaan madaxweynaha dawladda Puntland mudane Siciid Cabdullaahi Deni iyo madaxweynaha Jubbaland mudane Axmed Maxamed Islaam iyo waliba qaybaha iyo wasaaradaha isku shaqooyinka ah iyo gudiyada ka shaqeynaya arrimaha ku saabsan shirka labada dhinac